koox wada shaqeyneed oo ka kooban magaalada Cardiff iyo Somaliland ayaa loo yeegleelay sidii loo sameyn lahaa xiriir dhexmara xubnaha bulshada Somaliland ee magaalada Cardiff shaqaalaha akademiga ah iyo xukuumadda Somaliland socdaal muddo 7 qaatay ayay khabiiro ka kala socday qaybaha kala duwan ee jaamacadda Cardiff waxay ku eegayaan sidii cilmi baaristoodu uga gacan geysan lahayd dalka Somaliland Professor Colin Riordan oo ah madaxa iyo ku-xigeenka chancellorka jaamacadda Cardiff University ayaa waxa uu yiri sidan This is a good time to be developing a collaborative relationship with our partners in Somaliland. I think it's an appropriate juncture. Kani waa waqti fiican oo hore loogu marinayo xiriirka iskaashi ee aan la yeelanayno dhigayaga Somaliland. Waxaan filayaa inay waxtar idin noqon doonto arrintani maxaa yeelay dalkiinu markii uu ka soo baxay dagaaladii sokeeye arrinta muhiimka ahi waa sidii aad ugu guuleysateen nabadda iyo sidii aad ula tacaasheen dhibaatooyinkii dhinaca waxbarashada iyo ammaanka waxaan filayaa waxa soo dhamay in ay yihiin wax la taaban karo annaga waqti fiican ayay noo tahay maxaa yeelay iskaashigani wuxuu wax weyn ka tarayaa istiraatiijiyadeeda iskaashiga caalamiga ah iyo khaasatan waxaan ugu yeedhnay civic mission waxaan rajaynayaa inaan wada shaqayn yeelano hay-ado dibadda ah dawlado bulshada rayidka ah si ay nooga caawiso in aan hawlgelino khubaradeeda dhinaca cilmi baarista kuwaas oo la tixgelin karo in ay ku shaqeeyaan hannaan iskaashi iyo in ay abuuraan habab cusub oo wax loo sameeyo si wada jir ah ayaan isku caawin karaa innaga oo horumarinayna adduunka si loo dhiso bulsho sidan ka fiican loolanka loogu jiro horumarka ee soo waajahaya bulsho kasta oo ka soo baxda muranada sokeeye meelaha inta badan u baahan in wax laga qabto waxaa ka mid ah sida horumar waara waxbarashada iyo abuurista nolol waarta iyo in dalku ama dadku iskii wax u qabsado oo dibudhis samaysto waana sida ay Somaliland maanta yeeshay waxaanu aad ugu rajo weynahay inaanu yeelan karno iskaashi dhigayaga Somaliland si aan gacan uga geysano geedi socodkaas Cardiff ama Koonfurta Wales iyo Somaliland waxay wadaagi doonaan taariikh ay wada leeyihiin oo dhinacyo badan taabanaysa waxaa jirta xiriir taariikhi ah oo muddo dheer soo jiray oo ka soo bilaabmaya markii Somaliland ahayd maxmiyadii Britain iyo dabcan dadka reer Somaliland oo waqti hore soo degay Cardiff taasoo ay sabab u tahay xiriir ganacsi oo soo jireen ahaa waxa kale oo aan xiriir dawla leenahay bulshada Soomaalida Cardiff degan si wada jir ahna waxaan uga shaqayn doonaa inaan abuuro hannaan wax wada qabsi oo aan filayno in Somalilandna ay sidaa si lamida yeeli doonto waxaan rajaynayaa jaamacad ahaan in aan si wada jir ah u wada shaqayn doono dhigayaga reer Somaliland si gacan looga geysto oo loo horumariyo nolosha dadkiina aan idhaahdo markii ugu horeysay ee aan mashruucan maqlo runtii aad ayaan ugu farxay oo aan u jeclaystay in jaamacadda Cardiff ay qayb ka tahay arrintan aadka u muhiimka ah oo wax weyn ka tari doonta mustaqbalkiina iyo kaayagaba that we at Cardiff University are taking part in what is an extremely important and inspirational project which I hope will be critical to your future and to ours. wasiirka xiriirka caalamiga ah ee Wales Ellen Morgan ayaa iyana qoraal ku sheegtay sidan mashruucan oo ah mid xoogga saaraya in dawladda Somaliland laga caawiyo sidii ay u gaari lahayd ahdaafteeda horumar waara ee qaramada midoobay dejisay UN Sustainable Development Goals oo ay uga heli lahayd maalgelin saduuqa cilmi baarista mushkiladaha caalamka wuxuu dhisayaa mashruucani xiriir xooggan oo dhexmara jaaliyadaha Somaliland taas oo sii wadaysa inuu yimaad xiriir dhexmara bulshada Cardiff iyo Somaliland waxa aad ii xiisa gelisay ahmiyadda mashruucan qiimaha badan iyo faa'iidooyinka uu u leeyahay dadka Wales iyo Somaliland Hi, my name is Stephen Doughty and I'm the Labour MP for Cardiff South and Penarth and also Secretary of the All-Party Group on Somaliland in the UK Parliament, a cross-party group that brings together... magacaygu waa Stephen Doughty waxaan ahay xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha isla markaasina ah xogayaha dhammaan xubnaha ka mid ah xisbiyada ee taageera Somaliland kuwaas oo ka tirsan baarlamaanka UK waxayna ka kooban yihiin aqalka odayaasha House of Lords iyo aqalka wakiilada House of Commons si loo taageero Somaliland oo loo abuuro xiriir xooggan oo dhexmara labadan dal ee cajiibka waxaan aad ugu hanweynahay xiriirka Cardiff iyo Somaliland
waxaan leenahay jaaliyad cajiiba oo isbedel weyn ka sameynaysa Cardiff iyo Somaliland labadaba taariikh dheer oo aan aad ugu hanweynahay ayaa jirta aniga laftaydana kasoo xiriiro nagu dhexmaray ururada bulsho oo ka dhisan Cardiff waxa jira socdaal aan ku tagay Hargeysa waxa ii suurta gashay inaan la kulano wasiiro ka tirsan Somaliland wakiilo ka socday asxaabta siyaasadda iyo dabcan ururada bulshada rayidka qaybta ugu muhiimsan ee socdaalka iyagu waxa uu ahaa inaan booqano jaamacadda Hargeysa waxaana la kulanay dhammaanba dadka waxbarashada ku shaqada leh guud ahaan Somaliland waxa farxad iyo xiise gelin ii leh inaan taageero mashruucan ay soo abaabuleen jaamacadda Cardiff iyo jaaliyadda Somaliland ee Wales kuwaas oo ka shaqeynaya arrimaha waxbarashada iyo jaamacadaha waxaan filayaa in fursad aad u muhiim ah lagu heli doono sidoo kale waxna ka tari doonta xiriirka labadeena dal waxaan u rajeynayaa tiimka cilmi baadhista rajo fiican waxaanan uga mahadnaqayaa jaamacadda Cardiff sida ay u taageertay mashruucan waxaanan arki doonaa natiijada mashruucan bisha October ee sanadkan I wish you all the very best and I look forward to seeing the results of the project in October this year. sidoo kale waxaa isna arrintan ka hadlay Adam Price oo ah hogaamiyaha xisbiga Plaid Cymru ee ay leeyihiin dadka Welshku waxaanu yidhi As leader of Plaid Cymru, the party of Wales, I'm very glad to be able to send this message of solidarity and good wishes from the Welsh nation to Somaliland. aniga oo ku hadlaya magaca xisbiga Plaid Cymru xisbiga Welshka waxaan ku faraxsanahay in aan diro fariin ka socota Wales oo ku socota Somaliland kuna tacalluqda arrinta wadajirka ah halkan Wales waxaa jooga mid ka mid ah jaaliyadaha ugu ballaaran uguna da'da weyn ee Soomaalida waxaan aad ugu hanweynahay xiriirkan dhexmaraya Wales iyo Somaliland waxaan ku faraxsanahay in aan dadka Somaliland u diro fariin niyad sami ah oo aan ku taageerayno in ay helaan xorriyadooda had iyo jeerna waxaa noo farxad ah in aan soo dhaweyn ku qaabilno wufuudda ka timaad dawladda Somaliland iyo dadka Somaliland oo aan ku soo dhaweynayno dhismahan baarlamaankayaga waxaan rajaynayaa in annaga laftayadu aanu idin soo dhaweyn doono idinkoo qaran madax bannaan ah And we hope in the future to be able to welcome you ourselves as an independent nation too. waxa kale oo isna mashruucan iskaashi wax ka yidhi Lord Mayorka magaalada Cardiff Daniel Diath waxaanu yidhi Hi, I'm Dan Diath. I'm the Lord Mayor of Cardiff, the capital city of Wales, and I'm delighted to endorse this really exciting project between Cardiff Somali community, Cardiff University, and the government of Somaliland. waxaan ahay Daniel Diath Lord Mayorka magaalada Cardiff ee xarunta Wales waxaan jeclaystay in la yagleelo mashruucan xaqiiqatan xiisaha badan ee ay iska kaashanayaan jaaliyadda Somaliland ee Cardiff jaamacadda Cardiff University iyo dawladda Somaliland iyo waliba tiro ururada aan dawliga ahayn ah run ahaantii waa bilow aad u wanaagsan in xidhiidh lala yeesho Somaliland waana wax xaqiiqatan xiise geliyay It's a really great initiative to further our links with Somaliland, and I'm really excited about the possibilities it might bring. So, fully on board. Thank you.